waxay u tababaran yihiin wanaag qalbiyadooduna waxay jecel yihiin khayrka waxaanay la mid yihiin dahabka bulshada dhexdeedana waxay ku leeyihiin saameyn weyn oo ballaaran oon oran karo taariikh waarta ayay mudan yihiin nagu filan martideena maanta waxa weeye mid ka mid ah maamulayaasha iskuulada laakiin waxa dhacay waxaan isagu filanayn Oscarada ku dhajiya ardayda soo daaya عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى هذه الداية ما شاء الله الحمد لله يمكن بوقتها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mid ka mid ah ardayda la soo geliyo halkaas sii fariiso intaan gudaha ka soo noqonayo. إلى يوم الداية hala bilaabo ogeysiis dhammaanba ardayda waxaa la ogeysiinayaa inay iska soo xaadiriyaan barxadda iskuulka sidaan hore u sheegnay inaan ugu mahadnaqno meeshaas xaaji maxamed waa macallin howlkara oo hawshiisa ka soo baxa dhammaan ardaydoo dhanna ay jecel yihiin gelinka hore shaqadiisa macallinnimo ayuu gutaa gelinka dambena wuxuu caawiyaa dadka danyarta ah oo uu waxbaraa isagoo daneynaya inay waxbartaan oo weliba uu caawinayo jacaylna u qaba isagoon abaalmarin ka doonayn ilaahay dartii wuxuu ku qabanayaa dhammaantoodna waxay u haystaan waalidkood oo kale jacaylku u qabo iyo daryeelka uu siinayaba dabcan mudane maxamed waxau ahaa aabe iyo qof ubadka tarbiyeeya isagoo markasta wejigiisa ay ka muuqato farxad iyo naxariis waa nin aad iyo aad u wanaagsan dadkana u gargaara adiga haddaad aragto dhoola-cadeyntiisa ayaa kuu sheegaysa wax waliba indhihiisa oo keliya ayaa ku filan inuu muujiyo shakhsiyaddiisa aabbahayga wuxuu dhintay anigoo 6 sano jir ah weligay ma dareemin inaan aabbo lahayn maxaa yeelay isaga ayaa mar waliba ila jira isagu waa aabbahayga adeer waa qof wanaagsan maxaa yeelay ilaahay uma siinin wax caruur ah sidaas ayuu ula dhaqmayaa caruurta xaafadda waxa uu la dhaqmayaa sidii caruurtiisa oo kale adeer waxa uu ka walwalaa mustaqbalkooda waxa uuna ka soo qaadaa sida caruurtiisa oo kale sidoo kale waxa uu u rajeeyaa dhammaan wixii wanaagsan oo khayrka ku sugan ama khayrka ku jirta waxa uu jecel yahay dadka fursadda hore u dhaaftay inuu mar kale ka dabageeyo isagu waxa uu ahaa mid qaab fiican markasta wax noo bari jiray macnaha ardayga wuxuu wax u bari jiray sida ugu sahlan ee uu wax ku fahmayo qof walba oo wax ka soo dalbada amba wax ka doonaya wuxuu ku qaabili jiray waji furan oo naxariis leh ilaa haddana aynu joognay daadiisu weyn tahay wuxuu dadka weydiiyaa maxbaad u baahan tahay maxbaan kuu qabtaa maxaan kuu sameeyaa mudane maxamed runtii daadiisu imika way weyn tahay waxaa la odhan karaa aniga wuxuu iga weyn 8 ilaa 25 meelaha ilaa imika markuu arkay wuxuu weydiiyaa maxbaad iga baahan tahay heerkaas wanaagiis taagan yahay marka xalfadda dhalashadayda hadiyad ayuu ii keeni jiray waana jeclaa qof wanaagsan ayuu ahaa waxaan ka oran jiray adeer oo mahadsan tahay maxaan oran karayaa mudane maxamed ma garan karay wanaagiisa waxaan ku matalo sababtoo ah waxaan kugu tilmaami karaa inaad shakhsi wanaagsan oo aad u darajo leh tahay wax kastoo wanaagana waad istaahishaa mudanahayga qaaliga waxaan kuu soo gudbinayaa mahadnaq ballaaran
waxaad noo samaysay annagoo kaaga mahad celinaynaa waxaanan kuu rajaynayaa cimrigaaga inaad khayr ku dhammaysato qalbigaygii ka soo gooday mahadnaqani mudane maxamedow adeero anigu waan ku jecelahay ilaahay caafimaad iyo cimri dheer lahaa ku siiyo ilaahay noo kaa daayo in badan waana ku jecelahay anagu adeero ilaahay noo kaa daayo noolow intay nolol jirto adigu waxaad noola dhigan tahay aabbe kalgacal badan oo wanaagsan aad noo fiican adiga iyo walaalahaaga kale macallimiinta ah waxaad soo saarteen jiilal badan waanad ku mahadsantihiin erey walba iyo xaraf kasta oodna barteen wakhtigii waxbarashada run ahaantii kediskani wuxuu ahaa kediskii igu fiicna noloshayda intaan noolaa kediskii ugu wanaagsana uguna wacnaa maantaan arkay aad ayaan ugu faraxsannahay weliba si weyn oo aada munaasibadan aad maanta ii samayseen waxaana dareemay dhammaantiin bayna tihiin awlaadaydii oo dhammaantiin baad ixtiraamaysaan oo qiimeyn weynna ii haysaan waxaan kaloo maanta aan u mahad celinaya dowladdeennan wanaagsan tusaale noo tahay adeero mudane maxamed adigu waad istaaheshaa mudane maxamed cabdalla saciid waad istaaheshaa xaaji maxamed adigu waad istaaheshaa kani waa barnaamij aad u xiiso badan oo inoo sheegaya dadka wanaagsan ee dalkooga iyo dadkoogaba wanaagga u sameeya in ay mudan yihiin abaalmarin weyn qofka markuu dhinto inaan xusno oo taalo aan u samayno iyadoo laynaga rabay qofku intuu adduunyada joogo inaan xusno wanaaggiisa balse laakiin nasiib xumo qofka ceebihiisa iyo daldalooladiisa ayuunbayn inagu ka shaqaynaa hadiya habeen maalintu dhintana ammaan ayaan dabada u qabannaa taasina waa jaahilnimo iyo qorin maskaxdeena ku aroorsan alle waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo kuwa dadkooga wanaagga sameeya adduunka intay nool yihiin ugu mahadnaqaa abaalmarin weynna u sameeya